السلام عليكم أحبابي. sidee baan u xushaa qofka aan nolosha la wadaagayo waa mid ka mid ah su'aalaha ugu muhiimsan nolosha ee uu qofku isweydiiyay inta uu nool yahay sida uu uga jawaabo ee uu la falgalana ay wax badan oo ka mid ah noloshiisa ay ka ratibmayaan muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago toddobo halbeeg toddobo miciyaar toddobo ka mid ah maqaayiista ugu muhiimsan ay tahay qofka uu nolosha la wadaagayo in uu saaro oo uu ku cabiro shan ka mid ah toddobada halbeeg waxay la xiriiraan oo saameyn weyn ku yeelanayaan sida aad isu fahmaysaan khilaafkiinu u yaraanayo ee aad iskula falgalaysaan laba ka midana wuxuu toos cilaaqo ula leeyahay cilaaqa dhisida iyo sida aad isu fahmaysaan isu soo jiidinaysaan isu sii jeclaan karaysaan saaxiibana u sii noqon karaysaan inta aad nooshihiin soo dhawaada magacaygu waa mubaarak haadi waxaan ahay qoraa iyo tababare haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow channelka waa channel aan kusoo gudbino waxyaabaha qofka korinaya garaad ahaan laxaw ahaan cilaaqo ahaan iyo xirfad ahaan waxaan kusoo bandhignaa mawaadiic badan oo ay ka mid yihiin cilaaqaadka productivity-ga wada hadalka xirfadaha iyo wax wal oo aan isleenahay qofka garaadkiisa way korinaysaa intiina horey noola socotena waxaan si qalbiga idin leeyahay mar labaad soo dhawaada muuqaalkan wuxuu cilaaqo la leeyahay muuqaalan horey idinla wadaagay toddobaadkii hore kii ka horreeyey oo ku saabsanaa toddoba khalad oo la galo xilliga haasaawaha oo runtii falcelin aad u wanaagsan aad ka soo wadaagteen haddaba muuqaalka toddobada halbeega ugu horeeya waxa weeye waa inay jirto isa soo jiidasho laba dhinac ah waa inay jirto qodobkan qodob inta badan laysku sheegaya maaha oo waa qodobkii qalbiga la xidhiidhay waa dareen waa isa soo jiidasho waa inay jirto laakiin waxaan rabaa inaan tambiihiyo ama aan baraarujiyo waxa weye isa soo jiidashadaasi noocyada kala duwan ee dadku ay isu soo jiitaan aad bay muhiim u tahay qofku inuu ku baraarugsan yahay midda uu baahida gaarka u sii qabo matalan waxyaabo badan baa jira dadku ay isku soo jiitaan laakiin afarba anuu agteeda aan isleeyahay aad bay muhiim u yihiin waana waxyaabaha ugu waaweyn ee la isku soo jiito qodob koowaad waxa weeye in qofka physical attraction ay jirto in qofka jidh ahaan muuqaal ahaan jismi ahaan ilaahay siduu u sameeyey ismailkiisa suuniyihiisa labiskiisa quruxdiisa qofka ay tahay suuradda yani dadku isku suurad si u soo jiidato oo quruxda hadba waxay la xidhiidhaa qofku sidoo u arkayo laakiin isnooc ma isu soo jiidasha mid ka mid ah weeye waa tan jidhka waa attractionka la xidhiidha physical appearanceka qofka muuqaalkiisa dad baa ay u tahay mar walba ay taasi ugu jirtaa meesha ugu horeyso baahi u tahay nooca labaad waxa weeye isu soo jiidasho caqli garaadeed mid maskaxeed oo qofka kale uu ka jeclaysanayo caqligiisa garaadkiisa siduu u fakerayo maaragtay bisaylkiisa garaadeed afkaarta iyo meeshuu kasoo guranayo iyo halka uu ka imanayo iyo meelaha frequency isla geli karaya labada qof aad bay iyo lafteedu runtii muhiim u tahay bale mararka qaarkood waxaa dhici karaysa qofku inuu ku sirmo gabadh berdhoodii la soo xidhiidhay coachin aan siinayay waxay ii tilmaantay in furitaankeedu mid ka mid a sababihii ugu waaweynaa ee furitaankeeda keena u ahaa in ninkeeda ay ka weyday baahidii intellectual ay qabtay midii garaadeed ay qabtay waxay tiri markii ugu horreysay waxaan qofkan kusoo jiitay odayga kusoo jiitay muuqaalkiisa nin qurux badan oo sidan dadku inta badan yidhahdaan qofkan six pack buu leeyahay waa dheer yahay waa qurxoon yahay oo labiskiisaan ka helayo dabcan dad bay number one u tahay baan nidhi laakiin dad baanay u ahayn primary u ahayn secondary u tahay gabadhani sidaasay marka hore ku dooratay oo baahideeda dhabta amay ogeyn laakiin marka dambe waxay ogaatay baahida intellectual in leedahay oo qofkan aanay afkaar fara badan aanay ka wada sheekaysan karin taasina lafteeda xanuun bay noqotaa keeni karaysa in hadhow labada qof ay maaragtay cilaaqadooda ay sii bulaali weydo isoo jiidashada saddexaad waa maxay qof kale ku jeclaysto waa waxa la yidhaahdo personality-ga dabciga qofka shakhsiyadiisa tawaaduciisa naxariistiisa dhibrintiisa maaragtay dulqaadkiisa siduu qofka ula falgalayo yacni sheekadiisa waxyaabahaas inta badan humorkiisa sida uu kaftankiisa waxyaabaha waxaa inta badan shakhsiyadda la xiriira waxyaabaha inta badan dadka ay jecel yihiin ay yidhahdaan isfaham qof ifahmayaan doonaya qof aan isfahmayaan doonaya qayb ka mid waa intellectual qayb ka midna waa maxay waxa weeye waa personality-ga qofkan tawaaduciisa maaragtay naxariistiisa dadku aad bay u jecel yihiin baahidaada gaarka hadday taa tahay I think it's very important inay nooc ma ay jirto aad ku baraarugsan tahay ta afraadna waxa weeye waa spiritual waa mid ruuxiya waxaa la odhan karaya labada qof ay yidhahdaan waa soulmate dabcan qofku soulmate way noqon karayaan intellectual qofka lagu soo jiidan karaya
qofkood ku jeclaysan kartaa dabcigiisa ku jeclaysan kartaa quruxdiisa laakiin at the same time tan kulli wax way qalbigii bay la xidhiidhaan laakiin waa inay jirto qaybtii garaadka ay soo jeeday ee waaciga ahayd ee u fiirsanaysay qaybaha kale inta waa qaybtii ku soo jeedanaysay laakiin qofkan qof aad compatibility ay jirto oo isqaadasho ay jirto ma tahay iyadana waa in caqligaaga soo jeediso oo red flags u fiirsato waxyaabaha kale idin dhibaya mustaqbalkiina caqabad ku noqonaya guurkiina inaad maartahay wax badan aad u fiirsato marka is-soo jiidasho waa inay jirto qodobkaas mar walba kuwa kale waynu ka warrami doonaa laakiin is-soo jiidashadu aad bay muhiim u tahay weliba casriga maanta aynu nool nahay waa laga yaabaa labada qof in la isa siiyo iyagoon is arkin waa laga yaabaa iyagoon kulmin oon is arag in la isu meheriyo kadibna gadaal iska jeclaadaan oo ay maaragtay qoys wanaagsan ay noqdaan oo baraaray laakiin sida badan gaalibka ah maanta waxa weeye aad bay muhiim u tahay maadaama cilaaqadii iyo sheekaysigii iyo guurkii uu noqday ka duwanaaday kii markii hore aynu naqaanay aad bay muhiim u tahay nooc maa is soo jiidashaa ay jirto qaybtan waxay qayb ka qaadataa jacaylka iyo cilaaqada iyo xiisaha sida gaarkaa la isugu haynayo qayb ka mid ka qaadanaysa qodobka labaad ama halbeega labaad ee muhiimka waxa weeye adduun arag isu soo dhawaa inuu jiro labada qof waa in world viewgooda waxyaabaha nolosha macnaha uu sameynaya lifestyleka doonaya inay ku noolaadaan ahdaafta nololeed siday nolosha u arkayaan siday u noolaanayaan qayb weyn ba waxay ka qaadataa labada qof isfahankooda siday isugu tanaasulayaan nolosha inay yani dhan kasta wada eegayaan aad bay u adag tahay runtii haddii labada qof ay world viewgooda iska hor imanayo oo aanu iswaafaqaynin oo adduun aragooda aanay ka midaysnayn ama ay kala dabaqad sareeyaan world view marka la eegayo dhanka adduun aragee in markaa khilaaf fara badan uu yimaado marka aad bay muhiim u tahay in adduun aragiinu noocma isu soo dhawaado nolosha aad si u arkaysaanoo dhadhan gooniya nolosha aad dhan ka wada arkaysaan oo dhan ka wada dhidhiminaysaan oo badweynta dunida aad dhan kaga wada jirtaan halbeega saddexaad waxa weeye fahamdiimeed isu soo dhow maxaan uga jeedaa fahamdiimeed isu soo dhow markaan leeyahay kama hadlayno tii guud ee nabiga sal slam markuu tilmaamayey siyaabooyinka dadku ay isku guursadaan oo lahaa sallam fatfir bidaati diin taribat yadaak oo kama qaala calayhi salaam tii guud qofka inaad diin ku doorato aad bay muhiim u tahay tan way kasii hooseysaa waa meel hoose maanta waqti waxaan nool nahay afkaar iyo aqoon iyo dadka garaadkood wax badan isbedelay doodo badan ay dhasheen fahamdiimeedka aan ka warramayna waxaa si qurux badan u tilmaamay dr طارق الحبيب oo ah tabiib nafsiya oo sacuudiyana runtii markuu ka warramayo qodobkan uu sharxayo arrimo badan buu tilmaamaa laakiin laba qodob aad ii soo jiitay tusaale idinku soo qaadi karayo waxa weeye laba qof baa wada xasaawaya gabadha mathalan waxaa laga yaabaa fahamdiimeedkeedu inuu yahay mid habdhaqana maxaan uga jeedaa mathalan shacaa'irta diiniga ayay aad u weynaysaa mathalan salaada soonka nawaafil badan bay soomaysaa sunan badan oo maaragtay soona ayay soomaysaa waxay sadaqa badan salaatuleyl bay tukanaysaa markii maaragtay shacairtii caadiga si qurux badan bay qofka ka muuqataa dadna waxaa laga yaabaa wiil inay wada sheekaystaan deetana uu aragta diinta inuu wax ka fahansan yahay deetana ay tirahdo waa wadaad dabcan waa wadaad laakiin waa wadaadnimadiisu waa maxay waa wadaadnimo fikri ah iyadu waa teed waa habdhaqan tiisuna waa fikri waa maxay qofkun had iyo jeer waa qof ka warrama qadaayaadka islaamka matalan taariikhdeeda arrimaha fikirka arrimaha muslimiinta iyo wadciga ay ku nool yihiin wadciga siyaasadeed wadciga dhaqaale maaragtay falsafada islaamiga arrimahaas aad uga warramaya fikriga deetana waxaa laga yaabaa markay ku aragta khamiis isagoo xidhan oo ay la sheekaysatay tanti walaa qofkan waa wadaad laakiin wadaadnimada ay taqaanim ah fahamdiimeedkii baa kala duwan markay deetana guri wada galaan ay ka weedo salaatuleyl fara badan ay ka weedo soon fara badan oo ka weedo arrimo badan oo shacairta islaamiga ah oo runtii muhiima inay tiraahdo wallaahi qofkani waa ii dhuuntay maaha qofkii saxda aha qof maaragtay khilaaf halkaa uu ka dhasho dabcan dee way ka ballaaran tahay dee nolosha oo dhan bay runtii qayb xataa ilmaha sii loo barbaarinaya ayay hadhow cilaaqa la yeelanaysaa marka fahamdiimeed isu soo dhow runtii aad buu muhiim u yahay beega afraad isna runtii muhiimka ah weli waqtiga maanta ay nool waxa weeye thaqaafad iyo bii'a korriimo isu soo dhow waxaan uga jeedaa beenaha faafay waaweyn ee soomaalida dhexdooda ku faafa waxaa ka mid ah soomaalida waa isku dhaqan dabcan soomaalida si guud waa isku dhaqan oo dabcan diin bay wadaagtaa oo dhaqankeeda qayb weyn waxaa ka ah diinteeda laakiin markay noqoto taqaaliida iyo waxyaabaha la qiimeeyo iyo habdhaqamada iyo maaragtay curfiyada qaybo badan soomaalidu aad bay u kala duwan yihiin weliba markay noqoto guur waa meelaha very complicated maaragtay ay faraaraheedu aadka isugu dhafmaan isku guur maaha soomaalidu siday isu guursadaan
sodohaha habka loo guursanayo habka loo wada macaamilayo habka ma aragtaaye hadhow reerka loo dhaqayo habka labada qoys ee labada qof kasoo kala jeeda ay isula dhaqmayaan qoysaska Soomaalidu isku mid runtii aad uma aha qabaa'ilku waa kala duwan yihiin goboladu waa kala duwan yihiin maanta taabale waxa dheer in maanta adduunyada isku furatay social media uu jiro oo laba qof oo laga yaabo midna inuu maanta Hargeysa ku nool yahay ama Baydhabo ku nool yahay inuu la haasaayo gabadh مثلا Oslo degan Norway ama Copenhagen degan ama Minnesota degan ama Nairobi degan ama Addis Ababa degan dadkaas isku dhaqan ma noqonayaan isku thaqaafad ma noqonayaan waxyaabo badan oo runtii glue ah maxaa la oran karayaa shamito ama sibid kii isku xidhayay nolosha ayaa meesha ka maqnaanaya marka aad bay muhiim u tahay qofka aad nolosha la wadaagayso inuu ka soo dhow yahay ثقافتي أدوات كسب بربارتي أما ثقافتي يدخن كبلشة الله نولد أي كسب بربارتي إن ويران أتكبر على سنتها يبي أكل ريمو هو يدا يأباه دخن كدوات تقانا هو يدا يأباه لفتو ذا قفك كلاد جورسنا يسوع زنولش هذا هو ذا جسد هو يدا يسي أبيه ويلكن أما قبلنا هو يدا أبيه وهنا كل حساب تقدر يكرس وهاي قف قبل مجورسنيس ويلكن يوم مجورسنيس reer bad guursanaysa labada reerna maanta waxaad garanaysaa runtii maqraati iiga wadatiin in badan oo kamid ah furiinadu ay ka yimaadaan qoysaska ka yimaadaan idan marka qodobkaasi aad buu muhiim u yahay in thaqaafad iyo bii'o koriimo oo si soo dhow inay jirto arinta shanaad ee runtii iyadana muhiimka ah ee halbeega runtii muhiimka waxa weeye in qiyamkiinu inuu si soo dhawaado qiyam waxaan uga jeedaa gumaro qayasoor values هذا بس هذا الدنيا قيم كبني آدم لما نعبي وقف سمان كو أخلاقية حرية دا رنشاقة عدالة دا يونمت يعني كو قيم كأخلاقي كبني آدم كو أي وذو ذاقاني مضونا كبدا قيم ككلو حوي وكو شخصية قفك وحلا مهمة نولشا وحنا نولشا كو مهم كا يقفك وحنا نولشا مهم كا حتى هذا سكو ميت كان نقطان سيدا يدين كل مدونيين أما أولويات كيدو كويهين أيال غيابا إنay kala duwan yihiin guurka markay joogto marka meelaha muhiimka waxa kamid ah مثلا tusaale insiyo gabadha waxa laga yaabaa tusaale mar baan soo qaato gabadha waxa laga yaabaa in mid kamid ah qiyamkeeda gaarka aadka u value gareyso inay tahay guri markay noqoto family man nin family man oo markuu shaqadiisa ka soo rabo guriga yimaado waqtiga la qaato quality time la qaato carruurta la ciyaaro ay farxadeeda halka ka hesho ninkan waxa laga yaabaa wiilka waxa laga yaabaa valueski muhiimka isaga la inay ugu horeyso xaga ugu horeyso ugu jirto financial freedom uu ka fikirayo lifestyle careerkiisu doonayo inuu geliyo gurigu doonayo inuu dhiso vacationka inuu doonayo mustaqbalka dhow hadduu ilaahay yiraahdo markuu financial freedom gaaro in uu reerkiisa waqti badan la qaato la safro ilmihiisa waqti la qaato inuu ka fikirayo laakiin maxay goomxabil isla gaaraya qacda ugu horeysa isku dhacaya iyada maxay rabtaa gabadhi guriga waqti ninku la qaato oo ilmihii waqti la qaato oo quality time biradinaysa isaguna wuxuu leeyahay waa ninkan doonaya safro waa ninkan waqtiga doonaya maadaama wax dhisayo uu doonayo late laga yaabo inuu yimaado guriga iyaduna markaa xagee baad ka timi maxaad samaynaysa shaki xisaabaad fara badan markaa inay ka bilaabmaan idan marka waa la sheegaya marka qiyamka qofku waxa uu qiimeeyo aad bay muhiim u tahay waxbarista ilmaha kamida habka loo barbaarinaya kamida what are your values aad bay muhiim u tahay marka adna inaad garanayso qofka inaad garanayso tawaafuq inuu jiro in la isu soo dhow yahay qiyamkiina ugu yaraan waxyaabaha priority-gini ah inay isu soo dhow yihiin حسابه is very important by the way arrimahan waxa laga yaabaa inay kula kakan yihiin laakiin guurku maanta waa ogtihiin dhalinyaradu waa iswada guursanayaan haddana degdeg baa la isku furaya iridka laga gelaya daaqada laga baxaya maxaa keenaya wadcigii baa isbedelay duruuftii baa isbedeshay wixii wax lagu qiimeynaya baa isbedeshay noloshii baa isbedeshay lifestyle-kii baa isbedelay mafaahiimtii baa isbedeshay idan marka waa muhiim marka xilligan aad qofka la xasaabayso inay kuu noqoto processkii ay muhiimka ahayd inay qofkan aad wax badan kaga ogaato more than inta yare la isaga sheekeenaye la ismaaweelinaye la isku xiisaye baby iyo maaragtay hurdo telefoonka la isku seexinaye waxaas macna ka weyn maxaad jeceshahay dharka noocee jeceshahay midabka noocee jeceshahay arrimahaas wax ka waaweyn baa loo baahiyay in waqtigan looga faa'iideysto waayo go'aankani gaadhistiisu noloshaada si weyn buu u saameynaya qodobka haddaba lixaad ama halbeega lixaad ee muhiimka waa maxay by the way tan qiyamka tan mafaahiimta adduun araggu inuu isku soo dhow yahay tan la xidhiidha maxaa la yidhahdaa thaqaafad iyo maaragtaye iyo bi'a korriimo isu soo dhow tan ah mafaahiim diimeed isu soo dhow arrimaha oo dhan afarta arrimood waxay aad qayb uga qaadanayaan
khilaafkiina inuu yaraado waa meelaha inta badan faham darrada keenta gabadhu waliba iyo wiil walba markaad la sheekaysto wuxuu leeyahay qof aan isfahmaynaan rabaa waliba gabdhuhu waxay ku leedahay waxaan rabaa qof aan isfahmayno qof ifahmayaan rabaa fahamka laftiisa lama fahansana waayo fahamku meelaha ugu weyn ka yimaado waa maxay qofkan inay mafaahiimtiina iyo adduunka noloshaad u eegaysaan iyo qiyamkiina wax muhiimka nolosha idinla ah iyo mafaahiimtiina diiniga iyo adduun aragiina inuu isu soo dhow yahay aad bay marka muhiim tahay waxyaabaha khilaafaadkiina yareenaya isfahankiina badinaya isla falgalkiinana maaragtay balaadhinaya ayay ka mid tahay qodobkan haddaba lixaad wuxuu qayb ka noqonayaa luxdanaanta cilaaqadiina inay cilaaqadiina luxdanaato jacaylkiina qalbigiina wax badan isu soo dhowaado waa maxay waa in aad leedihiin wax xiiseen isu soo dhow nolosha sideedaba nolosha qoyska waa nolol ruutiin u badan waa nolol caruurta iyo hawlaha iyo maaragtay biilasha iyo nolosha iyo caruurta iskuulkooda caafimaadkooda hawlahooda wax badanoo ka mid a gabadhuna ay ku daalayso ninkuna uu intaa iyo ay u dheer tahay isagana dibaddii iyo shaqadii ay u dheer tahay waxaa la rabaa marka labada qof ay isku yimaadaan waxay ka wada sheekaystaan cilaaqada waxaa communicationka bilaaba labada qof small talka bilaaba waxa weye dadku inay wax xiiseynayaan isoo dhow yihiin ay ka wada sheekaystaan wax ka baxsan noloshan qoyska ee routiinka in laga baxo oo laga wada sheekaysto siyaasadda laga wada sheekaysto arrimaha dhacaya laga wada sheekaysto wax akhris hobbies yani qofku wax xiiseen isoo dhow maqasab maa inaad siyaasadda ka wada sheekaystaan waxaan u jeedaa labadiina waa inay jiraan wax aad labadiina wada xiiseenaysaanoo mararka aad caadiga tihiin aad ka wada sheekaystaan stresska iskaga ridaan caalamka aad ku gashaan cilaaqadiina isku soo dhoweeya geedka maarata jacaylka bulaaliya oo barakeeya oo waraabiya ayaa loo baahanya marka aad bay muhiim u tahay xilligaa wada sheekaysanaysaan in ay jirto waxyaabo wax akhriska safarka siyaasadda ilaa uma tiktok wax ka dhacay haddii doontaa noqoto wuxuun inay jirto waxaad ka wada sheekaystaan nolosha aad kaga digi kartaa marka wax xiiseen soo dhow waa inay iyaduna jirto aad bay muhiim u tahay ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabeynayaa waa in iimihiinu ay kala duwan yihiin waa qodobka shanaad ee qayb ka qaadanaya in khilaafkiina uu yaraado fahankiina uu soo dhowaado isla falgalkiina uu balaadho waxa weeye waa in iimihiinu ay kala duwan yihiin iimaha oo isku mid noqda waxay ka mid yihiin waxyaabaha khilaafaadka faraha badan keena hadda mararka qaarkoodna khilaaf hore jiray sii balaadhiya haddii labada qof waxay ku fiican yihiin ama strengthskooda iyo waxay ku wanaagsan yihiin ay iska waafaqaan ruux bay isku sii siyaadiyaan laakiin weaknesseska hadday iska waafaqaan mushkilad bay keentaa matalan gabadhu hadday kulushahay wiilkuna uu kululyahay gabadhu haddii ay anger issue leedahay wiilkuna anger issue uu leeyahay laba mushkilad sooma tusaalaha kale aadka u jecla waxa weeyaan soo qaato bulshadeenna aadka ugu badan haddii qofku uu vulnerability aanu lahayn uu ka baqayo inuu qofka yidhaahdo raalli ahow مثلا waxbaa ka dhacay deen raalli ahow inuu yidhaahdo ay ku adag tahay ka waran labadii qof way isqabteen qofkii khaldanaa raalli ahow waa ku adkaatay kii kalena raalli ahow laftiga waa ku adkaatay maadaama tanaasula loo baahan yahay labada qof isqabanayaan maadaama la isqabanayo mid waa inuu tanaasulo mid waa inuu u fududahay raalli ahowda ya iska raalli ahow xitaa isagoo og in laga khaldan yahay inuu raalli ahow yidhaahdo waxyaabaa guurka qurxiyo nolosha qurxiyo ka mid tahay qofba haddii jeer lagu maaragtay lagu baxsadaa oo tanaasulkiisa lagu baxsadaa laakiin imagine labada qofba haddii ay yihiin laba qofoo ay ku adag tahayba raalli ahowda vulnerability-gaba yani ka baqayaba oo goljilic iyo inuu value luminayo isu arkayo difaac ku jira xataa khilaaf yar hadduu jiray deetan labada qof waa kala aamusaya qof bilaaba qof sheekadii bilaabaya male deetan waxaa dhacaya marka in muddo la kala aamusnaado hadhow laga yaabo xataa markaad laisku yimaado oo la wada noloshii dadka isku keenaysahay la yidhahdo waxaan noo soo qabo waxaana naga maqan deetana hawsha haddana hadalkay bilaabata haddana markale haddana la isku dhaco haddana cabaar la kala aamuso mashaakilsha xitaa lagama wada sheekaysan karay aad bay marka muhiim u tahay runtii iimihiinu inay kala duwan yihiin inaasaan kusoo koobaynaa muuqaalkeena maanta ah hoob inaad wuxuun ka kororsatay safarkaaga iyo hanaankaaga haasaawe aad ku xulanayso qofkii nolosha aad la wadaagi lahaydna ay wax badan runtii kaa caawiso ilaah subxana watacaala waxaan ka rajaynaynaa khayraadu fara badan inuu nolosha inoo qurxiyo inoo dooro isagaa wax doore ka dooro adaa yaqaanta dooro rabbaa yaqaan ilaah subxana watacaala inuu inoo dooro inteena guurdoonka ah ama guurmeerka ah ilaah subxana watacaala inoo dooro qofkii nagu habboonaa nolosha wax badan iska kaashan lahayn safarkaa dheer ee noloshana aan iska weheshan lahayn aad baad u mahadsantihiin intaan muuqaal kale iyo barnaamij kale ku kulmi doono khayraad fara badan baan rajeynayaa inta maan gaajaysan yahay guli waa weli waxa la akhriyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu